madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hogaaminaya markii ay soo gaadheen duleedka galbeed ee magaalada Laascaanood ee xarunta u ah gobolka Sool waxa ku qaabilay dadweyne aad u tiro badan kuwaasoo muujiyay taageerada ay u hayaan madaxweynahooda oo safar shaqo ku soo gaadhay gobolka Sool waxaanay luulayeen caleemo qoyan iyo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo boorad uu ku xardhay sawirka madaxweynaha Soomaaliland dadweynahan ka qayb qaadanayay soo dhaweynta madaxweynahooda ayaa laga dheehanayay farxad iyo dareen qarannimo iyo sida ay ula dhacsan yihiin hogaaminta madaxweyne Biixi iyo waxqabadka xukuumaddiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u degay shacbiga reer Laascaanood ee soo dhaweyntiisa iskugu soo baxay waxaanu la lugeeyay wadada halbowlaha u ah magaalada fagaare ayay iskugu soo baxeen dadweynaha reer Laascaanood waxaanay ku soo bandhigeen wadajirkooda iyo taageerada ay xukuumadooda la garab taagan yihiin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahad celiyay shacbiga reer Laascaanood ee sida milgaha iyo maamuuska leh wafdigiisa u qaabilay gobolka Sool ilaa intii aanu soo galnay soo dhaweynta iyo kalgacalka iyo niyadda san ee aan ugu soo dhaweyseen iska mahadnaqaya gammaankaana guddoonsiisayna waa idinka mahadnaqaynaa socdaalka aniga iyo wafdiga maanta waxaanu u soconnaa haddii ilaahay yidhaahdo waa nabad iyo midnimo waxaynu maanta u baahannahay nabad haddii aynu ogna hareeraheenna iyo dalalka jaarka iyo caalamka waxa ka dhacaya waxaa loo baahan yahay inay qolo waliba iyo dad waloo jaariba halkooda nabad ku qaataan waxaynu ilaahay uga rajaynaynaa oo ummaddii oo dhamman idiin soo ducaynaysay annaguna aanu ku ducaynaynaa in ilaahay gobolka Sool siiyo nabad waarta oo taama iyo barwaaqo iyo horumar gobolka Sool taariikhda Soomaalida oo dhan ayuu xagga hore kaga yaalaa dhibaatooyinka maanta haysta abaaraha raagay colaadaha jiitamay ilaahay baynu ku baryaynaa inuu ka qaado oo gobolka Sool Soomaaliland iyo Soomaaliya dhan iyo geeskaba uu ka noqdo gobolada hormoodka ah si aan dhaqanka u lahaan jirteen taana magan baa laydinka yidhi reer fariintaan u sidaa waxa weeye walaalayaal waxaynu u baahannahay inaynu colaadaha iyo qoriga dhigno cimilada bay nala dagaalamaysaa abaaraha waa aragtay soo noqnoqonaya dhulkii la yaqaanay ee kuwaanka farda ku noolaan jireen ee taariikhda iyo buwaagta markaad akhrido nimcada ahaa maanta waa abaar gabaahiira sanadkan ilaahay mahadii roobku wuu inoo wanaagsanaa laakiin ka dambe wuxuu noqonaya garan mayno waxaynu u baahannahay caqli aynu isu geyno is-aaminaad dalka oo dhana iyo inaynu horumar samayno oynu duruufaha inagu weerarsan iska celino oynu la dagaalano dhibaatada deegaanka inuu keenayo walaalayaal ku horumari mayno qori kala aargoorsi meel ku gaari mayno aargoosi wiil unbaa ku dhintaa wiil kuma dhasho oo walaalayaal nin dhintay soo noolayn mayne ka nool aanu talino qof kastoo islaama iyo nin kastoo Soomaaliya oo nabad ka dhalinaya gacmaha loo qabanayna waa taakulayna masha Allah ka hor madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa madasha hadallo kala duwan oo mahadnaq iyo bogaadin iskugu jira ka soo jeediyay wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed barasaabka gobolka Sool maayirka magaalada Laascaanood iyo garaad jaamac garaad Ismaaciil oo ka mid ah madaxda dhaqanka ee gobolka Sool magaalada Laascaanood waa laga warhayaa hawlo fara badan bay soo gashay dalka reer Soomaaliland bay ka mid tahay nabadeyntii dhulkii ay ka islaaxday bay ka mid tahay marka waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye waa arrinta nabadda haddii ay tahay tii koonfurta maxaan ku idhaahdayey gobolkan Sool magaalada Laascaanood ka dhacday dhumay ka dhacday dabataa ka dhacday eeriya dharkayn ka dhacday waxaynu doonaynaa inaynu nabad ku soo dabaalno aad baad u mahadsantihiin dhammaan dadweynaha reer Laascaanood aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad baad ugu mahadsantihiin madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayay maanta soo gaadhay ilaa halkii ay gobolka ka soo bilaabeen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin madaxweyne saad indhahaaga ku aragto dadweynihii maanta magaalada Laascaanood cidima maqna waa dadweyne way soo wada baxeen waxa lagu soo dhaweynayaa gacmo furan waxa lagu soo dhaweynayaa mashaariicda aad gobolkan ka hirgelisay inta madaxweyne waxaanu kugu soo dhaweynaynaa ilaa iyo Daarasalaam iyo Goori Tuulo Samakaab Are Cadeeye Canjiid Laascaanood iyo xaruntii daraawiishta oo ugu shisheeyay oo taleexa oo diyaar lagaaga yahay dhammaan gobolka Sool iyo reer Sanaag waxay ku leeyihiin si wanaagsan ugu soo dhawow dalkan madaxweynaha u ahayd waa xaruntii garaadada
waana xaruntii